Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalka Family Medicine ama kanaalka kale ee Ustaad Sabira. Maanta waxaan ka sheekeynaynaa vitamins. Vitamin waxa waaye wuxuu asaasi u yahay korriinka jirka iyo nafaqeyntiisa. Waxa u baahannahay cunto vitamin leh maalin walba. Vitaminka waxaa loo kala qaybiyaa laba qayb: water soluble iyo fat soluble. Waxaa jira 13 nooc oo vitamins ah, afar ka mid ah waa fat soluble. Fat soluble markaa ku dhahayo waa biyo, waa kuwa dufinta ku milma aan biyo ku milmi karin. Water soluble markaa ku dhahayna waa kuwa biyaha ku milma aan dufinta ku milmi karin. Waxaa jiro 13 marka la dhahayo waxaa laga wadaa waxaa jiro 4 fat soluble vitamins ah oo loo yaqaano DECA. DECA yani vitamin D, vitamin E, vitamin K iyo vitamin A. Sagaalka soo hartayna waa 8 vitamin B oo kala duwan iyo vitamin C iyo vitamin C. Shaqooyinka faa'iidooyinka ay noo leeyihiin vitaminska qaar inta ugu muhiimsan soo qaad. Vitamin A wuxuu faa'iido u leeyahay cudurrada isha ku dhaco iyo maqaarka. Vitamin B9 ama B9 wuxuu yareeyaa cunuga inuu ku imaanin cunug neerfaha si ka ah inuu dhalanin. Hooyada uurka leh faa'iido u leeyahay vitamin B ama folic acid loo yaqaan magac labaad. Vitamin B12 asiga waxaa lagu daaweeyaa anemia iyo waxyaabo kala jiro. Vitamin C waxaa lagu daaweeyaa nabraha afka ka soo baxo iyo hergabka. Vitamin D wuxuu naga caawinaa in laga daaweeyo waxyaabaha jiro isgoosiyada infectionska ka jiro, suuska ilkaha gala iyo cudurka sokorta. Ma daaweeyo laakiin faa'iido waa caawimaad u yahay. Vitamin E wuxuu ka qayb qaataa socodka dhiigga, unug walba inuu dhiig helo nafaqada ku heli lahaa oo ka caawina. Vitamin K wuxuu yareynaa xanuunada la socda caadada ku imaada gabdhaha, iyo sidoo kale wuxuu ka hortagaa dhiig baxa ku imaanayo jirka. Haddaan ka sheekeyno fat soluble vitamins waa nooc ka mid ah ama kuwa ku milma fatka dufinta, waa kuwa ku milma dufinta. Water soluble jirka ma lagu keydin karo, laakiin fat soluble waa kuwa la keydin karo. Waxaa loo keydinaa sida dufin oo kale. Laakiin kuwan biyaha ku milma biyo le waaye, si sahal jirka looga bixin karo. Cuntooyinka laga helo fat soluble vitamins aan ka bilaabno vitamin A. Vitamin A waxaad ka heli kartaa karootada, beerka, bataati macaanka iyo wixii lamid ah. Vitamin D waxaa laga helaa dufanta malaayga. Vitamin K waxaa ka heli kartaa kabajka, ukunta iyo caanaha. Vitamin E waxaa ka heli kartaa khudaarta cagaaran. Kuwa biyaha ku milmana vitaminska biyaha ku milma waxaa ka heli kartaa dhammaan cuntooyinka kala ah ukunta, malaayga, afakaadhaha iyo waxyaabo kala badan. Vitamin C badan u naqaano waxaa ka helnaa liinta, yaanyada iyo farowlaha. Hadday vitaminskan ay jirkaada ka maqan yihiin waxaad qabtaa xaalad la hayo vitamin deficiency. Vitamin deficiency xaalad lahaa waxaa ka dhalan karo vitamina badan hadday ka maqan yihiin waxaa ka dhalan karo anemia. Saameynta oo kugu yeelan karo vitaminska maqanna waxaa ka mid ah in hooyada uurka leh uu dhibaatooyin kala kulmto uurka, inuu neerfaha dhibaatooyin ku dhaco oo ka qayb qaataan. intaasoo nagu egyahay mawduuceena. Waxaan rajeynaa inuu idin anfacay mawduucan. weli waxaan ahay arday inkastoo si fiican u soo diyaariyay haddana yaa laga qaban waxaan qalday maqaldamo Allah. waxaa diyaarsay casharkan walaasheen Farxiya Maxamed Muuse. qofka idin aqrinaysana waa Sabriin Maxamed Xuseen. isma dhaafno qaraabo mawduucyo badan soo wadnaa insha Allah. share